golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay ayaa si aqlabiyada uga codeeyay Israa'iil in lagu cambaareeyo inay xoog ku haysato buuraha Golan ee dalka Suuriya ay leedahay. buurahan ayaa dawladda waddanka Israa'iil waxa ay ka qabsatay Suuriya intii uu socday dagaalkii 6 maalin qaatay ee dhacay sanadkii 1967. codbixinta ayaa ku soo beegantay maalin uun kadib markii madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump uu sheegay in Mareykanku uu aqoonsanayo Israa'iil inay leedahay buuraha Golan. hadalka madaxweyne Trump ayaa ka dhigaya dalka Mareykanka waddankii ugu horeeyay ee uu aqoonsaday Israa'iil inay leedahay dhulkaasi. golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay oo kulan ku yeeshay xarunta Geneva ayaa dhowaan aad uga dooday buuraha Israa'iil ay xoogga ku haysato ee Suuriya. xubnaha golaha oo gaarayay 47 ayaa 26 ka mid ah waxa ay si aqlabiyada ugu cambaareeyeen Israa'iil inay xoog ku haysato dhulkaasi. dalalka u codeeyay in Israa'iil ay xoog ku haysato buuraha Golan ayaa waxaa ka mid ah wadamada Australia, Brazil, Bulgaria, Croatia iyo Jamhuuriyadda sidoo kale Denmark, Hungary, Iceland iyo waliba Italy, Japan, Slovakia, Spain, Togo, Ukraine iyo boqortooyada Ingiriiska. 5 dal oo kale ayaa ka aamusay oo kale ah wadamada Cameroon, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, Fiji, Rwanda iyo Soomaaliya. dawladda Israa'iil ayaa 1981 dhulka ay maamusho ku darsatay buuraha Golan iyadoo aanay jirin wax aqoonsi caalami ah oo ay heshay. dalka Suuriya oo buurahaasi laga haysto ayaan ilaa hadda wax jawaab ka bixin hadalka ka soo yeeray madaxweyne Trump. buuraha Golan waxa ay koonfurta galbeed kaga beegan yihiin caasimadda waddanka Suuriya ee Dimashq, waxa ayna masaafo dhan u jiraan 40 mayl. waxa buuraha saliidda ee Golan uu dhererkoodu gaadhayaa 1200 kiiloomitir oo isku wareega oo u dhiganta 400 oo mayl. buuraha Golan intooda badan waxa ay dawladda waddanka Israa'iil ay qabsatay dagaalkii bariga dhexe ka dhacay 1967. dawladda Suuriyana waxa ay isku dayday inay buuraheeda dib uga soo ceshato Israa'iil iyadoo 1973 dagaal la gashay. waxa ayna dagaalkaasi kadib labada dal ku heshiiyeen in la sameeyo dhul dhan 70 kiiloomitir oo militariga ka caagan. dhulkaasi oo ay gacanta ku hayaan ciidamada nabad ilaalinta ee ka socda qaramada midoobay, balse labada dal waxa ay ahaayeen kuwo weligoodba uu dagaal ka dhaxeeyo. in ka badan 30 deegaan oo Yuhuuddu leedahay ayaa ku yaala buuraha Golan qaybta Israa'iil maamusho, waxaana ku nool dad lagu qiyaaso 20,000 oo qof. deegaanadaasi oo lagu tilmaamo inay sharci darro yihiin marka laga eego dhanka shuruucda caalamiga, iyadoo dawladda Israa'iilna ay ku doodayso inay sharci yihiin. dadka Yuhuudda ah ee deegaanadaasi deganna waxaa deegaan wadaag ay yihiin dad Suuriyaan oo gaaraya 20,000 oo qof. badankooduna waxa ay yihiin dadkii Carabta ahaa ee lagu magacaabi jiray Druze, kuwaasi oo meelna aan uga qaxin markii ay buurahaasi Israa'iil qabsatay. Saciid Axmed Tamrayse, wararka telefishanka caalamiga ah ee Star.